madaxweyne daniyow doodaydu waxay tahay ama deeq waxbarashiyo horda dibadda ii dira ama degmadan ku noolahay degalkayga joogay dugsi kaale ii fura darsi aan ka baran karo waa da'yar dareensan inuu maqan yahay door ay lahayd muhiimna u ah nolosheeda ayaan xasan ducaale waa gabar 7 sano jira araggana naafo ka ah dhowaan waxa ay fariin ay soo dirtay ay caawinaad ku weydiisatay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo maanta madaxtooyada ku qaabilay uguna laab qaboojiyay in arinteeda uu wax ka qabanayo ayaan oo maansada fariinteeda ay ku soo gudbisay qalbiga qof kasta oo damiir la ay taabanayso waxa ay madaxweynaha ku tusinaysaa sida ay nolosha uga leedahay hadaf iyo hiigsi sare isla markaana aan loo dayicin oo doorkooda daryeel ay helaan iyada iyo inta la midka ah ee baahiyaha gaarka ah qaba da'yartaa dhulkeediyo dudaday ku dhalatiyo dacda hooyo jiifto wili dalan dalbaran iyo dalab iyo ilmaan ahay gabar aragga daymada rabbi uu ka daahiyo indhoolkaa damaan ahay ruux damac sarreeyiyo xamid durugsan yeesho duruustii aqoontii doonaya baan ahay dalkaygiina kama helin daryeelkaan u baahnaan maantana dahuubiyo dacwad iyo su'aal iyo fariin baan u dirayaa duulahaan bulshada iyo dowladayda wacan iyo madaxweyne daniyow doodaydu waxay tahay ama deeq waxbarashiyo horda dibadda ii dira ama degmadan ku noolahay degalkayga joogay dugsi kaale ii fura darsi aan ka baran karo salaan kadib fursad ayay u heshay in maanta ay baahideeda gaarsiiso madaxweynaha mar kale ayayna codsigeedii ku celisay anoo ayaan xasan ducaale waxaa salaamayaa madaxweyne Dani iyo madaxdii iyo dadkii oo dhan madaxtooyada jooga iyo ganacsatadii dhammaan waan salaamayaa waxaa si gaar ah ugu mahad celinayaa madaxweyne Dani waxaa ka codsanayaa inuu marka hore dhakhtar caafimaad geeyo dhakhtarka ugu caalamsan madaxweyne Dani inkastoo doorkiisa ay tahay haddana dad badan ayaa ku bogaadiyay dhaqso uga jawaabidda codsiga ayaan isagoo ka hadlayay madaxweynuhu kulanka uu maanta ku qaabilay waxa uu sheegay in ayaan iyo inta la baahida ahba ay yihiin dadka ugu muhiimsan ee xukuumaddiisu ay wax ka qabanayso xaaladooda qofku waxa ugu weyn oo haddii uu baahi gaar qabo cid garab taagan inuu waayo ugu daran ya awoodda kaleeto dee waxa ilaahay waa qadaray oo wixii ilaahay qadarin habta kama horsaay karo laakiin sida dadka kaleeto iyagu danahooda u tashanayaan qofkan kaleeto markii la baahi gaar qabo wuxuu u baahan yahay cid maarta ag taagan bulshadaana mar walba iyada isku tashata ka xukuumadahaana insha Allah awalba dawladda iyaga aasaas u ahaa inaan taa ka sii wada shaqeyno sidii loo hirgelin lahaa kow wixii baahida ay tabayaan oo xaqqa tacliinta inay helaan iyo wixii daryeel ah ka gadaalna in maaragtay arrimahooda kaleeto oo ku saabsan tacliintooda iyo mustaqbalkooda wixii laga qaban karo inaan ka qabanno aadaan runtii ugu rajo weynahay arrintaasna si fiican baan wax uga qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo wixii karaankeenna oo dhan waan istaagi doonaa haddii ahaanad caafimaadkooda iyo haddii ahaan tacliintooda dabcan maalintii dhowaato dareenka dadkoo dhan aad u hadlaysay laakiin hadda wixii tabar ah unba hadba la dhaqaajin doonaa haddii ilaahay ka dhigo dabcan haddaba waxa isku dayaa jira kooban Puntland oo dadka indhaha la garo waxba ka jira kuwa dhagaha la iskuulaad baa jira ayaan iyo cunuga yar oo kaleeto oo dabcan haddii noqoto wax dad waxa jira dhalasho oo waxba laga qaban karin iyaga cadeyn doona haddii ay tahay wax laga gaari karaan intii karaan ah inay hesho marka